kusoo dhawaada channelka Waayasame. Waxaan maanta ka hadlaynaa oo miiska inoo saaran sida loo samaysto boorso lacageedda internetka ee Bible. Deedna ammaanka loo sugo. Deedna Mastercard-kaaga sida ugu xiran lahayd. Haddaba daawade, Bible waa boorso lacageed laga furto kontooyin online ah. Waxa lagu kaydsadaa lacagta, waxa la iskugu diraa lacagta, waxaana wax laga gataa isla internetka gudihiisa. Waxa ayna ku kaalmeynaysaa markii Mastercard-kaaga aan la aqoonsanayn ama bankiga Mastercard-kaaga uusan aqoonsanayn, yacni website-ka wax ka gadanayso markuusan aqoonsanayn bankiga aad Mastercard-ka ka soo furatay ama cilado jira aawadeed ay wax Mastercard-ka ka khaldan yihiin. Waxay ka saacidaysaa in aad Bible-ka si degan wax ugu gedatid. Inta ugu badanna waa aqbalaan website-yada adduunku. Haddaba daawade, haddii ay tahay markii koowaad ee channelkeena soo booqatid, fadlan subscribe noo saar si muuqaalada gadaale ee waxtarka xambaarsan aad u rukumatid. Channelkana share garee ama faafi oo dadka la wadaag si uu dad badan u gaaro oo u baahan Bible ama xogaha noocaan. Marka hore waxaa tagaynaa website-ka Bible uu ku leeyahay webka. Waxaa ku qoraysaa www.bible.com. Waxaa ku dhufanaysaa shaashadii Bible-ku waa kaas. Sign up baad haysaa. Haddaa horey u lahayd waa login, laakiin hadda waa sign up. Halkana waa taaban ka dhaca ay ku qoran tahay sign up for free. Taa ku dhufo sign up for free. Wuxuu ku soo saaray security challenge wax dhisa I am not robot, me robot. Waaye traffic light waa labadaas la traffic light. Next day waa khaladnay baaskiil. Sawirka waa baaskiil, kaasina waa baaskiil. Maxaa kaloo baaskiil noo muuqda? Kan baaskiil kan dhinaca ka muuqda, kan dhinaca ka muuqda. Okay. Mobile number geli fast waa kaas. waayahe waa geliyay wuxuu ka rabaa koodkii. Koodka mobile-kaaga lagu soo dirayaa. Waxaas koodkii. Email address, email-kii buu laga rabaa. Magacaaga koowaad, channelka magaciisa waa bixinaynaa Bible-ka. laakiin adiga shardi waa inaad magac ugu bixisaa. Password geli. Password-kaagana inta badan waa inuu yahay password adag oo fiican. Xuruf yar xuruf waaweyn iyo number leh. Okay. halkaas aad tagaysaa. Ma saf kariya may never. Weligaa waxa la iska ilaaliyaa ka never baa la dhahaa. Haddaba daawade, wax laga rabaa leenka Soomaaliya joogta address lane 1. waxaan gelinayaa hadda magaalada aad joogto. magaalada joogto. halka waa postal code-ka. postal code-kuna waa Soomaaliya ma laha, laakiin 5 eber baa la iska geliyaa. Date of birth xilliga dhalatay. haddii hal mar
laga helo ama maaragtay waxaan oo dhan iyo hadhow xogta kaararka ku xiran doonto meelaha gagalan doonto waxa hadday kala duwanaadaanin waa dib waa masta inaa markaa hore waxa ku dhamaystiran wax isleh hadhow la tagtaa kabacdina waxa leeyahay waa inaa labada calaamad saartaa stay log yani tan muhiim maaha taa kala muhiim sababtoo ah taa haddaa ka tagto waxba muhiim ah laakiin taa haddaa ka tagto waa uu kaa diidayaa wuxuu dhahayaa warta masta calaamada saar marka agree and create account waa dhehaysaa waxaynu hadda sameynay bible-kii waxa u gudbaynaa labada waji ee noo haray ee ah in aan security ka adkeyno kabacdina aan mastercard-ka ku xiriirino hadda waa aragtaan wuxuu soo saaray get started iyo yani shaqo geli oo howlgal waa bahalka ku samaysan yahay marka inta wax ka dambeeya kayga caadiga ahaa baan ka tusayaa waxa dhiman sababta waxa weeye haddaan kan mastercard-ka ku xiriiriyo hadda caqabad wax ka imaanaysa kayga caadiga mastercard-ka hadda haddaan rabo inaan ku xiriiriyo dhayaa mastercard-kan waxa iskale oo lagu xiriiriyay number kale marka xoogaa caqabad bay noqonaysaa marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye in aan kayga caadiga oo real-ka oo aan isticmaalo aan ku xiriiriyo oo aan idin tuso sidaan mastercard-kayga iyo akoonkayga aan ku leeyahay bible-ka aan toos isugu xiriiriyo haddaba ila daawada saaxiibayaal waxaa muhiim ah in security-kaagu adag yahay oo aan lacagta lagala bixin sababtoo waxa laga yaabaa lacag fiican in aad halkan kugu jiraan si aan lagala bixin horta waxa ugu muhiimsan security-kaagu inuu adag yahay password waa kugu xiran yahay maxaa kale halkaas taabo si aan security ku adkeyno hadhaysaa security halka markaa taabato security waa ka tegaysaa qaybta security waxaad taabanaysaa two step verification setup taasaa ku xiranaysaa ugu muhiimsan wuxuu kaa rabaa inuu loo diro text me accord mise authority tan waa program lala soo dego laakiin tana ugu muhiimsan text me accord code isoo dirtay numberkaaga waa kan next day markii aad rabtay inaad gashid waa in numberkaaga code loo diraa hadda ani codeki waa isoo dhacay saasuu igu safe garoobayaa sidaan codeka geliyay codekana idinka qariyo waxa muhiim maaha laakiin mar walba code gooniya lagu soo diraya codekii waa geliyey mar walba waa on halkaasa lagu soo dirayaa okay dande haddaba waxaa tegayaa wallet si aan ugu xiriiriyo akoonkayga iyo mastercard-kayga wallet ku dhufo waa kaa wax ku qoran link a new card cusub kaarkaaga ku xidhso okay link a cardkaaga ku xidhso halka waxaad gelinaysaa xogtii kaarka kaarkayga saasaa lagu xiriiriyay marka waa ii fududahay hadhowdii magac u bixi bangigan ka isticmaal oo bixinaya magaciisa safda IBS Bank mastercard-kii waa kaas magacaas u bixiyay aad baa u mahadsantihiin haddaba daawade muuqaalkan aan kugu sharaxayay bible sida loo sameeyo security-kana loo adkeeyo mastercard-kaagana loogu xiro haddaa ka heshay fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad like-ta iyo share-ta labadaba u samaysid waxaan aaminsanahay markii hore inaad subscribe channel-ka soo saartay aad baa u mahadsantihiin saaxiibayaal